السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة qiimaha badan oo mar kale muuqaal kale maanta muuqaalkeena waxaan ku soo qaadanaynaa talooyin ku aadan ardayda imtixaanka galaysa dhammaan dugsiyada dalka. Sida aan wada ognahay waxaan joognaa xilliyada imtixaanka iskuulada kaasoo arday walba rabo inuu ka keeno darajo aad u sareysa ama galo kaalinta koowaad. Maanta waxaan halkan kugu soo gudbinayaa 6 qodob oo haddaad raacdo aan kuu ballan qaadayo darajo aad u sareysa inaad ka keenayso imtixaankaaga kaalinta koowaadna aad galayso insha allah. Si fiican u fiirso muuqaalkan dhammaan ardaydana la wadaag mahadsanid. waana kuwan 6 qodob ee ka faa'iideysi waxan. Iska ilaali walwalka imtixaanka. kow iska ilaali walwalka imtixaanka. Imtixaanku wuxuu leeyahay walwal iyo walaac siba markaada aadan aad u diyaar garoobin. waxaa loo baahan yahay inaad iska yareyso walwalka imtixaanka sababtoo ah walwalku wuxuu daciifiyaa maskaxda. sidoo kale walwalku wuxuu kugu soo kordhinaa biraatee ma jirto ee ka fogow. waxaad ku garanaysaa inuu walwalku hayo adoo hurdadu kaa yaraato ama kaaba imaan weydo. sidoo kale adoo cunada ku dhadhami weydo ama cunto fiican baadan cuni karin iyo fakar aad u fara badan. halka aad ku daweyn kartana waa adiga oo aad u diyaar garoobdo wax badanna akhriso si aad kalsooni u hesho. 2 samee diyaar garow. waxaa loo baahan yahay arday walba inuu sameeyo diyaar garow dheeraad ah ka hor intaan la gaarin maalmaha imtixaanka. maadooyinkan aad si fiican u diyaariso haddaadan diyaar garoobin waxaa kugu dhacaya inaad marka imtixaanku bilowdo aad walwasho oo aad istiraahdo waxba ma diyaarsan imtixaanka waad ku dhacaysaa ama waxaad keenaysaa darajo aad u hooseyso. haddaba si aad uga dheeraato ama uga fogaato waxyaabahaas oo dhan samey diyaar garow ballaaran imtixaanka ka hor insha allah. 3 maaree waqtigaada macnaha ilaali. waxaad u baahan tahay arday walba imtixaanka galaya inaad maareyso waqtigaaga oo ay samaysato jadwal aad ku dhaqanto maalmaha imtixaanka. haddaa waqtigaaga marka hore meelo kale ku bixin jirtay waxaa la rabaa hadda inaad ku bixiso wax akhris iyo diyaar garow iyo wax baaris wax badan aad fiiriso. 4 hel nasasho kugu filan. waxaa u baahan tahay inaad heshid nasasho iyo hurdo kugu filan. qaladaadka ugu badan ee ardaydu ku dhacaan waa iyaga oo xilliyada imtixaanka dhafra xilliga habeenkii, sida inay kafee cabaan ama soo jeed dheer sameeyaan taasoo ay u sababayso iyagoo aan marka hore waxba diyaarsan kadibna raba inay inta imtixaanku socdo waqti dhan ku bixiyaan wax akhris. hadba ka fogow dhafarta xilliga imtixaanka. 5 kalsooni ku beer naftaada kalsooni geli. waxaad u baahan tahay inaad naftaada ku kalsoonaato mar walbana filashadaada sareyso oo waxaad filanaysa in noqdaan wax sareeya. niyadda dhisato mar walba maleysato in imtixaanka darajo sare ka keenayso. taas waxay ku noqon doontaa dhiirigelin iyo shidaal aad ku socoto. balse marka kalsoonidaadu hooseyso naftaada waxaad ku abuureysaa cabsi iyo inaad ku fashilmayso imtixaanka. haddaba dhis niyadaada oo ku kalsoonow naftaada. 6 allah tala saaro. qodobka ugu muhiimsan aan kusoo gabagabeynayo muuqaalkan qaybtan hore ee aan uga hadlayo ardada runtii waa qodob aad u muhiim ah. waa allah inaad ku kalsoonaato ood allah ama ilaah tala saarato. allah ka barido inuu kuu fududeeyo imtixaankana darajada sare ku siiyo insha allah. malo wanaagsanna allah ka maleysato waayo allah ayaa xadiisul qudsi ku yidhi aniga waxaan ahay wuxuu addoonkaygu iga maleysto.
qaybta labaad talooyin ku saabsan imtixaanka. waxyaabaha la rabo inaad sameyso inta imtixaanka aad isku diyaarinayso. 1 maadooyinka xifdiga ah inaad indhaha u badiso sida tarbiyada, carabiga, soomaaliga, taariikhda. 2 maadooyinka fahamka ah inaad dhamaystirto oo si fiican u fahamto. waxaana ka mid ah maadooyinka fahamka sida chemistryga, physics-ka, biology-ga, xisaabta iyo juqraafiga. fahamka inaad dhamaystirto oo si fiican u fahamto. waxaana ka mid ah maadooyinka fahamka sida chemistryga, physics-ka, biology-ga, xisaabta iyo juqraafiga. saddex isticmaal wadada ugu sahlan ee aad wax ku akhrin kartid ama ku fahmi kartid. 4 inaad hesho nasasho iyo hurdo kugu filan. waxyaabaha la rabo inaad ka fogaatid inta imtixaanku socdo. 1 inaad isku daydo maadooyin badan inaad waqti yar ku wada akhrisid. maadooyin fara badan inaad ku akhriso 10 daqiiqo ama nus saac maya ma anfacay, ka fogow taas. 2 inaadan dhafrin ama nasasho helin. 3 group arday fara badan ama dad fara badan ay ku wada jiraan inaad waqtigaada ku lumiso ama inaadan wax ku dhex aqrin gruubyada. keliga wax akhriso, keliga wax diyaarso. waayo gruubku mamar sheekay keenayaan, mamar waa waxbaa lasoo qorqoraya, waxyaabaan munaasib ahayn, waxaasoo ku mashquulinayna. marka taas ogow, ka feejignow. qaybta 3 imtixaanka intaadan gelin ka hor maxaa lagaaga baahan yahay? waxaa lagaaga baahan yahay 1 soo diyaar garow, dhammaan soo diyaarso agabka aad u baahan tahay. soo qaado qalimaantii, calculatorkii haddii mastarad loo baahan yahay, qalin rasaas ama qalin qori bensel haddii loo baahan yahay, gooma haddii loo baahan yahay. qalimaanta imtixaanku galaysin ha noqdaan ugu yaraan 2 qalin, ugu badnaan 3. waa qalin la istaagi kara, qalina ka halaabi kara, wax badan la dhici kara. marka waxaa loo baahan yahay mar walba qalimaantaada inay diyaar ku ahaadaan. 2 quraac normal ah ama fudud soo cun. cunto fudud soo cun adoo gaajaysan imtixaanka soo aadin. 3 waqtiga imtixaanka la galayo ugu yaraan 20 daqiiqo kasoo hormar oo mar hor imaw. imtixaanka xilliga la galayo 20 daqiiqo ka hor imaw. 4 xakamee walwalka iyo baqitaanka. 5 ha gelin dood, cidna su-aal ha weydiinin, jawi degan qaado. 6 iska ilaali imtixaanka intaan la gelin wax yar ka hor inaad wax akhrisid buug ama waraaq, waxyaabo kale oo imtixaanka khuseynin. imtixaanka waxyaabaan khuseynin. tusaale maanta tarbiyadii soomaaliya la galaa, 2 maada la galayay waxaan ahayn aa isku mashquuline lamaro, midaasna ka feejignow. qaybta 4 intaa ku dhex jirtid imtixaanka maxaa lagaaga baahan yahay arday ahow? 1 ku bilaaw ducada imtixaanka. imtixaanka markaa geshid fasalkay ku jirtaa, warqadda lagu keena ducada ku bilaaw, taasoo ah allaahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla wa anta tajcalu lxusna idaa maa ji'ta sahla. ducadaas ku bilaaw, insha allah waad guuleysanaysaa. 2 ku bilaaw magacaaga iyo rool nambarkaada. waraaqdan iska hubi, imtixaanka lagu keen iska hubi. 3 ka bilaaw beejka koowaad, beejka laga gedin kan koowaad ka bilaaw. 4 marna isku dayin inaad bogagga dambe soo rogtid ama soo gegedisid, iska ilaali. 4 wixii su-aal ah oo aad garan weysid ka gudub, waqtiga ilaasho, waqtigaas aga lumin. su-aasha labaad oo kale 4aad waa fahmi weysay, ka gudub. 5aad 6aad su-aalaha kale gudub, ka shaqeey, midaan waqtigaas aga luminin. qodobka 5aad markaa kasoo baxdid imtixaanka kadib ardayga maxaa looga baahan yahay? waxaa lagaaga baahan yahay 1 maadadaas halkaas uga tag, dib ha ugu noqon. maadadaa soo gashay dib ha ugu noqon, halkaas uga tag. 2 waxba dadkaa ka weydiin imtixaankaad soo gashay, su-aashaas maxay ahayd? sirkalkaas lambar 1 ba maa la gelinahay, lambar 5 ta ma ahayd maya. waxba dadkaa ka weydiin imtixaankaad soo gashay. 3 dooda ka gelin wixii su-aal lagaa weydiiyo.
afar yaysan caqabad kaaga noqon maadada beri aa gelaysid doodan yaysan kugu mashquulin maadada beri aa geli lahayd diyaarinteeda. gun iyo gunaanad codsi waxaan qof walba ka codsanayaa inuu muuqaalkan u sheergareeyo dhammaan ardayda gelaysa imtixaanka oo waajib ku saaran. fadlan ardayga adoo kalaa uga faa'iideey qodobadan. fadlan yaan laga iloobin muuqaalkan subscribe iyo share iyo like, waayo dhiirigelin ayaa noo tahay inaan waxyaabo fara badan oo saan oo kale ah aan idiin soo gudbino insha allah. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waxaan alle ka baryayaa oo idiin rajeynayaa inay imtixaanka ku guuleysataan dhammaan ardayda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan ardayda reer Al Anwaar. dhammaantiin waxaan idiin rajeynayaa guul wacan insha allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.